سيدنا عمر رضي الله عنه عمر بن عاص مركو مصر تجي ذاتك ري مصر عاده waxay u lahaayeen gabadhii dhalata gabadh bikira oo shaabada quruxu dhalatay labadeeda waalintay raali galiyaan lacag iyo dahab wax walba siiyaan ayay wabiga niil ku tuurayeen deedna wabigu markaas biyihiisu ziyaadayeen deedna markaas beeraha ku waraabsanayeen caadadii buu ka joojiyay abaar baa dhacday biyihii baa sii gudhaya reer masar waxay u dhawaadeen dalkaba inay ka baxaan markaa buu joojiyey cumar buu u diray risaalo markaasuu yidhi yaa amiira almu'miniin arrintaasaan ku arkay reer masar waana ka joojiyey biyihiina waa sii gudhayaana maxaan sameeyaa markaasuu cumar ku yidhi asabta waad asiibtay buu ka yidhi waad asiibtay ma aragtaanay waad asiibtay laakiin waxaan kuu sheegayaa warqad baan soo dirayaa akhyaartooda iyo cuqaashooda ururiyo webiga niil dul teg warqaddaan webiga ku dul furo ku dul akhri deedna ku tuur buu yidhi wixii ilaahay ka falay meeshaa waad arki doontaa waa cumar qof baa qof warqad u dira taasaa macquula soo maa qof baa webi warqad u dira ka warrama waa sila billaah cilaaqa maca allahi bay heleen dadkaas warqaddii buu keenay warqadda waxaa ku qoran min cabdillaahi bay ka socotaa amiira almu'miniina cumar bay ka socotaa ilaa waadi niil bay ku socotaa in kunta tajri min qablika falaa tajri haddaad awood aad leedahay aad ku soconaysay kuwa baanina ha socon hadduu ilaahay ku socodsiinayay weligaana allaha waaxidkii qahaarka waxaan weydiisanay inuu ku socodsiiyo warqaddii baa lagu tuuray 16 diraac ayuu kor u kacay baa la yidhi webigii ilaa joogadeena webigii isma taagin biamri illaahi yajri amarka ilahay baa ku socdaa reer misir cuqaashoodii iyo salaadiintoodii markay arkeen karaamaddaas fadakhaluu fii diin illaahi afwaaja qisadda labaad waxa weeyaan sayidina cumar radia allaahu canhu oo madiinata almunawara mambarka ka khudbadaynaya ciidankii saxaabiga saariye uu watay falastiin joogay ee gaaladu dhabarjebinta ay rabeen inay ku sameeyaan halkaasuu cumar kala hadlay kelimaad khudbadda aanan ku jirin ayuu ku soo daruu yidhi yaa saariyatu aljabal wa yaa saariyata aljabal yaa saariya xagga buurta yaa saariya dhinaca buurta iska fiiri khudbaddii markuu ka dhaadhacay asxaabtu way yaabeen yaa amiira almu'miniin maanta maxaa tidhi markaasuu yidhi waxaan idhi hadda inii sheegi maaye ciidanka allaha keenay buu yidhi waad arki doontaan jamaacaddii baa soo noqotay fatxi iyo khaniima ay la soo laameen iyo khalaba iyo haziima